kabtanka kooxda qaranka Argentina ee Lionel Messi ayaa muddo 3 bilood laga mamnuucay ciyaaraha kubadda cagta ee caalamiga kadib markii koobkii qaramada Ameerika uu ku tilmaamay mid musuqmaasuq daashaday. weeraryahanka reer Barcelona ayaa kaarka casaanka loo taagay ciyaartii dhexmartay iyaga iyo Chile taasoo 2-1 ay Argentina kaga guuleysatay, balse Messi ayaa markii dambe shir jaraa'id oo qabtay waxa uu yiri koobka Brazil ayaa iskale. Messi ayaa haatan haysta 7 maalmood oo uu racfaan kaga qaadan karo go'aankaasi lagaga mamnuucay ciyaaraha. mamnuucidan ayaa waxay sababaysaa in Messi aanu ka qayb gelin ciyaaraha saaxiibtinimada ee Argentina la dheeli doonto Chile, Mexico iyo Jarmalka, kulamadaas oo la ciyaari doono bilaha September iyo October ee sanadkani. kadib kulankii nus dhamaadka ee Brazil 2-0 kaga badisay Argentina ayaa xiriirka kubadda cagta ee Argentina ay ka andacoodeen khaladaad dhanka garsooraha, balse baaritaan kadib ayaa la sheegay in eedeymahaasi su'aasha geliyay sharafta koobka qaramada Ameerika ay yihiin waxba kama jiraan. kadib markii Messi uu daqiiqadii 37aad la siiyay kaarka casaanka ayaa uu yiri ma ahan inaanu ka simid ahaano musuqmaasuqan, waxay inoo muujiyeen xushmad darro intii uu tartanku socday. waa nasiib darro musuqmaasuq iyo garsoorayaasha inay dadka u ogolaan waayaan inay ku raaxaystaan kubadda cagta, ayuu yiri Messi.